waxay u tagtay inay dhasho ma xumo naagahoo dhan aa dhala ana waa soo dhalay hooyo walba caruur haysata way dhashay laakiin xaaladda gabadhaani waxaan dhihi karaa xaalad in ka dhacda caalamka dhifiya naadir okay intaas waxaa kuu dheer waxaa waaye in wax gacan qabta oo aldiis xaqeydii soo dhiciya jirin balaan aragna qisadaani saan u yaabina yaabi doonto waa huba hanoo bilaabato بصوا اهو البنطلون كله اهو بصوا الرجل اهي الرجل اهي كلها اهي الرجل بقيت رجلي كلها نص الركبه اهو بصوا نص الركبه الربعه اهي كلها اتشالت الرجل كلها داخله عشان اولد داخله عشان اولد حزب الله ونعم الوكيل حزب الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو نقد وناكسو لالديدا ونو ولاشين هودن channelka diga daawanaysa waa channelkan aad iga barateen hodan online hadaan nagu cusubtay daawad soo dhow gacmo furan subscribe noo saar like fara badan iska saar free mahano saar like commentigana wixii ra'yigaaga mise su'aalaha qabtid qaybta comment sectionka igu reeb su'aalaha aad soo weydiisaan waxay tahay hodanay Soomaaliya ma yaala Muqdisho ma yaala Hargeysa ma yaala ma yaalo waliba dadka aan uga baahanahay Muqdisho iyo Hargeysa waxa weeyaan dadka business kale يعني dad dukaamo leh ayaa uga baahanahay oo aan jumla ahaan uga gado oo aniga dadka isoo weydiinaya halkaas jooga iga daawaday walaaladeeda ee familygayga aan ku xiro hanoo bilaabato maanta waxaan joognaa Masar nahanti qisadaani sida la sheegayo sanad iyo bar ka hor ayay dhacday yani 2019 okay qisadan waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Nurhan sida la sheegayo waa 26 jir asalkeeduna dadka qaar waxay leeyihiin amase website-yada qaar waxay leeyihiin Aswani waaye qaar waxay leeyihiin Suudaan waaye laakiin aniga markaan fiiriyay Suudaan ay ila eg tahay amase waa ku noolaa meesha sawtaasa keenaysa inaan u dhaweeyo okay Nurhan waxay guursatay 2018 bilawgeedii kadib xaamila ayay noqotay waa guurkeedii ugu horeeyay ama se markaas waxay ahayd yani arooskii first time ay guursato okay kadib uur bay qaaday waa wax hooyo walba oo naag walba xaloo guursadaa inay ninka nolol la qaato qofka ay jeceshahay ay ilmana u dhasho okay uuray qaaday kadib dhaqtar ayay amse hospital ayaa wuxuu ugu tagi jirtay visitka inuu ka dhaliyo kadibna xaaladeeda uu la socdo waayo hooyo walba oo uur leh dhaqtar qaas ayay ku xiran tahay siibo hal doctor ama laba doctor ugu badan laakiin hal u badanahay hospitalka ay sheegayso Ayn Shams ayaa la yiraahdaa sida ayada afkeeda ka sheegayso dhaqtarkaasay tagtay gabar oo dhaqtarad oo Misriyad ayadana ayaa xaaladeeda la socotay gabadhaani marka waxay lahayd sokor waxay ahayd dadka maradka sokorka qabo ilaahayna ha ka caafiyo allahumma aamin ya rab maradu sukar ayay lahayd kadib say sheegayso uurkaygu markuu 6 bilood oo gaaray ayay u bilaabatay dhibkaani inkastoo dhibka loo geystay mid ka weyn ay basan jirin laakiin waa arkaynaa walaasheen مسلم ما مسلم لماذا إنما المؤمنون إخوة ولا شيء واحد أوكي المهم لح بلاد مركي أنجاري اللي بيتري أو بشي لحد أنجاري أيا وحي أركتي بيو هو ينكا يدو مركا وحسب بدنا فهمايو لح بلاد مركي إهاد أور كده لح بلاد أو جاري أيا وحي أركي جرتي بيو because هو ينكا أور كلا ويجرني أي وحي وحصار عليبو كده بدكتور ده تكتوي وشك تزابطه هو يدا أور كلا kahor adu ugu dambeyn waqtiga ay tahay inay biyo aragto markay bisha 9aad gasho kahor laakiin hadii ay biyo arkayso waa inay dhaqtarkeeda u sheegtaa waayo waxa dhici karta hadii ay aamusto ay sheegi weydo in ilmaha caloosha ku jiro biyo ku dhex jira ilaahay subxaana qaadir awoodiisa biyo ku dhex nool yahay ilmahani biyahaas soo u socdo wuu qalala taas waxay keenaysaa hooyada hadhow tale inay operation ku dhasho waayo badanaa hooyooyinka laba qaab waaye mid simankeedu yar yihiin iyo mid biyaha ilmaha ka dhamaaday ama mid laga dilaaciyay yani ina dadka fahansanay ama se gabdhaha wali guursaneen iyo dadka fahansaneen laakiin hooyooyinka laan dheereen okay
6 bilood markaan galay bay tiri ayaa waxaa asxaabi karaan la maanta qasaalada iyo daarneel maadereyaal igu qaataya okay bishii 6 markaan galay bay tiri ayaa waxaan iska arkay biyo dhaqtaradeydii waan u sheegtay markaas waxay tiri bay tiri bal waa ku fiirinaya bari ii kaalay baridii ayaan u tagay bay tiri waxay igu tiri okay ma xuma waxaa dhici karto in ay tahay ilmihii hoos u soo daadegay maadaama gabadhaana ay tahay gabar qof jismi leh kulay clip ayaa soo dhigi doona af carabi waaye waxay ku hadlayso waa idin turjumi doon dadka fahmayeen waa fahmooyin okay bishii 6 markay gashay kadib oo sorry bishii 6 markay u dhamaatay oo bishii 7 ay galayso ayaa waxaa dhacday inay biyihii sii ziyaadaan kiniiniyaashu wixii la siinaayay waxba waa u tari waayeen dhaqtaradeedii waxay ku tiri marka dhaqtarka isku soo xaadiri waa ina dhaqtarka aan kugu heena oo bishii 8aad lagaaga dhaliya yani maanta aniga hoodan haduu yiraahdo dhaqtar bishii 8aad lagaaga dhalina ilmu bishii 8aad dhashay ma noolaad iyo bishii 6 bishii zeelmayaashu ma noolaadan I don't know why laakiin ilmu 7 bilood haduu ku dhasho ilmo dhicisa waaye oo day niniish oo dhalo ku dhex noolaan karo wuu noolaan karaa ilmo 7 laakiin ilmaha 8 bilooda dhif iyo naadir mahna ma noolaadaan majul okay waxay ku tiri bay tiri bisha 8aad markaa gashid ayaan ka dhalin doona ee kaalay oo dhaqtarka isku soo xaray sidii baan dhaqtarka isku soo xareeyay bay tiri oo fuxusaad waxa way baaritaan iyo dhiigag iyo waxyaabo badan layga qaaday si xaaladeyda loola socdo okay halkii baan dhaqtarkii joogay bay tiri markaan 4 maalmood kaliya joogay ayaa waxay isiiyeen insulin waxa waaya leeyahay dadka sokorta qabo cirbada la siiyo ayaa insulin qaarna cirbad waay qaarna waxaan jeclay inay kiniini tahay okay insulinkii baa la isiiyay bay tiri markaas la igu yiri waxa tahay xaaladaadu emergency waaye waa inaan ku badbaadinaa adiga ilmaha waa inaan idin kala badbaadinaa hadaa wax yar saacad yar sii joogtid adiga ilmahaba sidaas ayaad ku dhimanaysaan markaas aan ku yiri bay tiri okay ma xuma aan dhalo iga dhaliya ma diidani laakiin ilmuhuna ma noolaanaya waa su'aal hooyo walba ay weydiinayso ilmuhuna ma noolaanaya kow aniguna ma noolaan doona markaas lagu yiri yes adiguna waa badbaadaysaa ilmuhuna waa oo badbaadi doona haya baan ku yiri bay tiri sidii ayaa waxaan ku galay ghurfatul amaliyaadki marka waxay iduraan bay tiri bing bay sheegtay bing I don't know bingaas wuxuu yahay bal idinka ii soo sheega sidii ba ghurfatul amaliyaadka asxaabi bal dhageysta please ya dulmi waay ani daacad ilaahay baa runta nagu jecel غرفة العمليات كي قشي وقبر بشي تضباط ولي بلان دونت إني بشي تضباط أنقلو بلون ير ويجر مالموين ير رالي نقطة قصال دا كوما قانا هاي بكس مربان كده مسوسي قيلنا سا بلا عارف صدق أوكي بشي تضباط إن أنقلو مالما إيجا دي مانيتري يعني كدواد ويجا إيجا دي مان ستيل بشي لحاله كجرتا إيجا دي جنت هاي وقال بيتري غرفة العمليات كي اللي المها ليجا صو صاروا أو داني المين اللي كله بتبادي ما دام اللي يجو يري أما المها أما أديها وهو يوعب صديت نفسه ده أو بقي سيدي أيا وحنكو قالي غرفة العمليات كي غرفة العمليات كي أنا بقال محمي أفر عمليات فيريا أفر عمليات أيا اللي يجو سميه كتيري يعني وهو يدا ليسون هذا يجو بطور علوش هذا جاحو كلا صباحات كلا صباحيسين لكن أفر عمليات محي كليه واي هذري كو هرتا المها operation أيا لوجا صاري normal واي تاس مديدن يعني normal هو يقول با واحد عيك تاني هوس كده الكرويدي لقى صاري مديدني تاس كو واي تلا بعد ونها أي قلين وحلا قلي يد حتى ولي موجا تلا بعد وحويان المجالين كي أيا مقرن تن أفراد عملية أفراد محيط أصحابي ما قرن إنسان اللوك تيدي إلا يعجرك لجري كليبا صاركتين يعني قف لويدا كله جاي يسيق الشيء لوك ما هي سوون المجالين ما هي ستيو تري ونيد وقلي هاي وح لقى الصباح إيه وح لوج جليبو مهم إن لقى الصباح وح ونا أنا مروي ونا وح لقى الصباح نو لكن أما وح لوج جلي أما وح لقى الصباح لكن وني محل الجري وكو لبو المجالين كوايا لوجا صاري صدح وايا لوكتا لو جرتي war aniga ma lugteedaan ku diray mise ilmeyga soo jiidaan ku dhahay su'aal meesha taala sidaasay tiri afar amaliyad marka la igu sameeyay ayaa ku dhawaad waxay kooma ku jirtay 9 days cir iyo dhul meelay joogto isma aysan ogeyn
9 maalmood please waa idinka raali gelinaya khasaalad aadaa idinkaga raali gelinaya mana dhacayso mar dambe igu qaata maanta walaaladayda camaliyadii afaraad markay ka soo baxday ee 9 maalmood kooma ku jirtay ay soo kacday waxaa dhacday inay waxba xasuusanaynin gabadhii kaliya qofka kaliya garatay waxa weeyaan zawjkeedii bas hooyadeed may garan dadkan may garan magaceeda xataa ma aysan garanaynin inay xasuusato qofkay tahay magaceeda iyo waxay tahay dhan iyo inay dhaqtarkaanba aslan loo keenay inay dhasho inay soo xasuusato waxay igu qaadatay bay ku tidhi 22 maalmood 22 maalmood ayay dhakhtarka ku jirtay 9kii maalmood ee koomaha kasoo tagayaa waa markay soo kacday ay يعني soo kacday koomii ka soo kacday aqliga ilaahay miirka u soo celi haasaas miirka ilaahay u soo celiya 22 maalmood bay ku jirtay dhakhtarka 22 kaas maalmood waxay xasuusanayso oo ka ahayn zawjkeeda ma jirto xataa way ku leedahay inaan uur lahaa oo u imaaday meeshan inaan dhalo ma ogeyn ma xasuusnin sidii baa hadda marka gurigeedii markay timid yani guri iyadoo waxba xasuusanayaan dhakhtarkii laga soo saaray sidiiba markay gurigeedii timid tartiib ay wax xasuusan jirtay wax ka soo daba hadlay oo dhaqtara wax ka daba yimid malahan ninkeedii baa marka dhaqaatiir kale oo wadna ah iyo orday lawyer qabsaday maxay yeelay dhakhtarkii uu tagay ninkeed wuxuu ku yiri faylkii xaaskayga isiya A to Z afarta camaliyada u sameeyeen inay uur lahayd idin kugu timid meeshan inay dhasho faylkeeda dhan farta iga saara waxa lagu yiri ma garanaysaan saxaab ku yiri xaaskayga faylasheedii isiya afartii camaliyadeed u sameeyeen iyo waxa idin ka rabaa inay meeshan dhalmo u timid adu wixii ayada ku saabsan dhan farta iga saara markaas waxay ku yiraahdeen faylashii xaaskaaga way dhumeen oo anaga fayla idin hayno ma jirto yani waa qof fidil oo u soo gashay dhakhtarkan Caynu Shams inay dhasho wadnaad qasheen waxaad ku geliseen waxaad yeesheenbo ilma galeen malahan yani anigu waxaan fahmi waay okay ilma galeen waa la baxay ilma galeen marka dumarka laga baxo waxa lagu sameeyo waa ognahay ma fahanteen taas ka soo tag okay wadnihiina waad qasheen still inkastoo la ogay wadnaha waxa laga jirinay mise laga raadinayo ka soo tag laakiin aan waxaan fahmi waa saxaabe bal adiga daawaday su'aasha aniga igu soo noqonayso miya adiga kugu soo laalaaban please comment igu sheeg qofta lugteeda maxaa laga doonay markaas waxay ku leedahay lugta sida loo jaray yani lugaha yani Allahumma najin inta laga jarin ilaahay ha uu khayr Allah iyo daarul aakhir Allah ugu bedelo qofka marka la jaray mishaarta oo kahrabaayiga la soo qaata hal mar la jara laakiin ayada sida la ii jaray ku tiri qaybna saan yani labadii lugooda waxa loo jaray waa aragtay sida qoriga marka la jaray qoriga marka la saafayo kala saan yani lugtiya waxay naqatay saan camal saasa afkeedu u dheeriya hadda lafaa soo taagan ilaa iyo cajarka ayaa maqan gabadhii hadda waxaa waaye mashluul oo waxay ku dhutinaysaa biro waad soo aragteen clip yar ilmaheedii maanta wuxuu jiraa bay ku tiri ilmahayga sanad iyo bar dhaqaatiirtii saas u gashay dhakhtarkii ka shaqaynayaan weli mudiirkii ee hospitaalka markii loo tagay wuxuu yiri aniga fayl idin haayo malahan faylkiini waa dhumay waa labo xaqeedii wax u soo dhiciyay malahan because qofkan xaqay leedahay ilaahay baa runta jecel lacag waxay taraysa malahan qoftan lug idil mar labaad ilmo ma dhali karto aroosaday ahayd sanad ku dhawaad sanad baaba la qabay waa ilmihii ugu horeysay hooyo damba ma naqan karayso curiyaan baad ka dhigto kursi baa la saaray wadnaheed hadda waa qalan yahay oo weeg walba wadnaheeda visit buu u baahan yahay wax ka soo daba hadlay wax u qabtay dhakhtarku xataa maba dareen waxay ku leedahay naagtii sidaas ii gashay oo faylkayga dhan gacanta ku hayso oo qolka ila gashay camaliyaadka waa arkaabay ku tiri markaa dhakhtarka u doonanayeen dhahay ilaahay ka cabsada isiya way intay fiirsay garab maraysaa baa lagu yiri yani see aragta adiga daawaday maxaa ka dhiileed arrinkan aan waa yaaban ahay يعني هل شيء يعني مسكحتي ديدن تهاي هل كاس شيء وحوايه لوكتان محل جيريه المقالين دمعة قال كرو أو نا ضد بيجرو مليونز كبحنين المقالين هلان
oo dhalayni ilaahay saas ka dhigay oo raba inay dad galaaftaan taas fahmi laakiin lug ma lug baa lug malaha qof walaalayaal oo qof kale oo lug leheen ma lugta loogu dhaji rabay laakiin lug ma lagu dhajiyay ilaahay baa runta jecel maalin dhaweyd horta waxaan arkay YouTube anoo qosooyin raadinaya oo daawan anu waa daawada qisooyinka aan soo bandhigaya xataa dad kale soo bandhiga xataa waa daawada yani Soomaali waxaa jira qisooyin soo bandhigo anigu daawada AJ Fadna kamid tahay ee kamid yahay dadweynaha ogaal cusub saddexda kanal baa qisooyinka soo dhiga oo aan daawad iyo wiil kale oo wiil waaya waxa hadlo annaga production I think inuu magacu saas ahay yani afarta channel baa qisooyin aan ku ogoon daawada okay saas amala u fiirsada amaani waxa arkayay I think inuu soo dhigo ogaal cusub nin gacan loo beeray gacan saan 1992 ayuu gacan ku waayay accident gacana loo suubiyay marka waxa hadda igu soo dhacday hadda qisadan duubaya sidii ninkii gacanta loo suubiyay amal gabadh aan lugteedu qof aan lug leen ama lugteedii loogu dhajistay bal gabadhaas waxaad ku tilmaami lahayd xaaladeeda iyo waxa ay xaq u leedahay as a humanity bini aadantinimo waxay xaq u leedahay bal commentiga ku soo sheega waayo gabadhaani dad badan wareysteen jaraa'idyo Masar laga leeyahay oo Masriya wareysteen YouTubera wareysteen dad badan wareysteen laakiin still maxaa haysaa xataa cid dhehday malahan bal adiga daawada qisadan sida ay kula tahay commenterka igula wadaag وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم لأنه qof dulmiya ilaahay asagana meel kale unbu ku siin doona taas waxweyn maaha adduunyo kama tudin tudaan waxweyn maaha marka intaasan jeclaysi maad qisaas inaa idin la wadaago because anu waa ku wareeray bal adiguna waxaan yidhi bal iyagana wareeri commentiga waxa ku soo sheegaa ra'yigooga waa kaas khayr idin dhaafay intaan ka kulmayno fi amaanillah